taanku yaho xidigtiina tirinaysa dhaxda kaaga sii taale alxamdulilah maanta shakigii kuu jiri waa kaa baxi saciid nabadoon waxaad joogtaa caasimadda xaruntii dalkaaga hooyaad joogtaa wax kaa halaawaya ma jiro maxaa yeelay 16 sano waxaad ku maqneed shaki waxaan jirin caloosha lagaaga buuxi beenaa laguu sheegi marka waa kana hadda xamar waatan fiirso dadkii arag meel walba aad yaan lagu eedin waayo Soomaalidu waxay tiraahdaa qabri aan la suurin iyo kharaab la booqanin labadaba waa dhuman saciid dalkaaga le ku dadna waa dadkaaga dal la'aan ma tihid dad la'aanna ma tihid 16 sano mahid ka maqneed waatan xamar waatan yaan lagaaga sheekeenin ee adiga dad oo sheekay saciid nabadoon dhowr jeeraan ku soo wacay dhowr jeeraan wax ka dhaadhiciyay wax bool baan ku sheegay sidii xaaladda tahay ku sheegay ma kasti saciid wakana meeshan huudey leeyala wax kale ma yaalo huudey waxa kala bistaa reer tawareedka ha akala bistaan timishan kuna jirsay oo baalween lama isku jooga gashay oo feeresan meey rabtada ku tagaysaa ahay reer tawareedka kala bistaan booska oo huudeyda lagu gado waay ha waa salaamatin alxamdulillah aad huudeyda ka barama malamudu hayo waa kana fiiri arag dal walba laga keena dal walba illa Thailand dar laga keen wayala wax yaalin male timishan kun waa ku labisay 10 kun waa ku labisay 5 kun waa ku labisay adiga baalween la awayn way ii kana dar ma ku waayaan maxaa yeelay adduunyadu wixii yaalo anakan waa haysana tawar baana hayso 16 sano dagaal aan ku jirno wixii ilaahay keen khayr leh way hay malamudoyo caafimaadkeen ka warama intii dhimata Allah naxariisto ninkan saciid nabadoon la yiraahdaa ingiriiska isku maqnaay 16 sano beena loo sheegay fiirso waa kana fiiri kan waxa qaadi jiri Tony Blair igarkiis waa kaas mujada James Korfulo kaas kale waxa qaadi jiri Maxamuud Abbas walaalkiis Abu Mazin ha ilmihiisa ku dhedheli jireen waxaan dhanha adduunka laga keenay Thailand illa Hong Kong dar laga keenay wayala fiirso waa kana 5 kun hadda din turno bacal no buuxin hal bacmado no buuxin ahay wiilka buuxsi ha Soomaalidu waxay tiraahdaa nin walba tabartiisa ay qodax ugu tagtaa koona $100 aku labisto koona 10 kun baalwin aku labisto ay khayraas googday ay salaam alaykum khayr adirjana adduunyo xaalkeeda waa saciid nabadoon ko waxa arkaysaa $200 as waxa ka bixinaa hal jaako koona 3 kun baalwin oo tacbaan joogto as hal isku joog ku iibsaa tabartaada le way macnaa maxaa yeelay waxa liiri miirka adeegu mininkaaga moogaanta ma la soo maraayo farax sidoo ku heesi isitay manogto inta muujada waa kana harqaan waaye dhara lagu talaa hadda dalbihisa wara laga siiha iyaga naftirkood wax badan ma shaqaysan mar dhowle la furay meeshan waa kana iyaga huudey le waa idan lamada dhinac waa kana reer tawareedkii waaye ninkaanay hal luga ka maqan hal luga ka buubti u soo ogeen madfac hawaabaha ku dhacay xaliima dhashi xaliim lugabha agaarkeeda waa aati aad ilmaha bradatiin daasha hawreero hal luga maqan daaylu hal luga laga buusi madfac hawaabe hoowi baagamunta aku shaqaysti سليلة إلهي عافمات كيس أو سعلي سوقل سعيد وكنا حرخان كي أبتجاجا واي أبتجاجا حاج بانو سلامي حاج بانو سلام سعيد وكنا مجدينو شلمان تنا سمت ها سنتي ها خميسنا وبحا دي إلهي رب تمي الحسن ومقناج أنت دمت الله ونحرز تسليه وكنا حاج أبو يركي سواي كي يراي واي نحدين لسان كدكتي تمي الحجر واي وها أركيسا أفرجر بدار كتالا أركيسا شنجر دين هذا هايو شجاسة شنجر أو هبرتيس ده هايو هو بيلك لعك يصدر وحلا أركيني ماله محيال الدجالك وعب ملك دفايو ودوات عنهن سعيد ساسو أجو نبض وحك في عن ماله نبض ماله هلايو لكن الدجالك وحفي عن إلا هشيو محيال تميل حسنو سلكان دول وادي جويني تميل حسنو سلكان دول وادي جويني لكن هذا الحمد لله
shalay maanta karoon maanta beriya ka fiicnaa hey haddii ilaahay yidhaahdo maxaa yeelay nabadda aana mac waaye salaan saciid nabadoon aa la yidhahdaa ninkan tami 6 sano dalka waa ka maqnaay dadkii wax waaye oo shakiga caloosha loogu soo buuxiyey oo hadda yaqiinta u yimid waaye inay arkaan waa kana ilmahan yar waa kana tami 6 sano jiraan ama tami 8 sano si u boodayeen oo kor le u saaldayeen naxdin le saan u gasho waa kana oo mar walbood saalday kor u ka dhac si u dhahayeen waa kana kor u kaceen marka wax way nabad wax ka fiican ma jiro wax nabad lagu waay bilaay ma lagu helay saciid nabadda aana mac waay markii hallow aan ku dhahayo abti maayeli adi waxaad ogeen aan inta ku arkeen anigu waxna ma ku sheegin intii dibadda la naxariisto maayeli afka ma laga hindisho sankana ma laga qonfaco waxa leeron in la heshiiyo leeron maadaama abti oo siibo leeyahay nabadaas ku ognahay saciid waa bixina dadkaani ikana tacabka Allah u fududeeyo ilaahay idinkiis toogtana Allah noo wada toosiyo qaraabkaan qaraab dooro oo khashin lahayn Allah ka dhigo xamar waa kana waa is arkaysa wax sheegtada la rabaa adig wax sheeg waa kana ninkan Abdi Buufle waa kana 68 sano harqaan la tuluhaya إلا wax loo soo toray wax loo soo tolay Sayid Maxamed Abdul Xasan isku joog loo soo tolay إلا wax loo soo tolay iishag baxal dhaha oo India macay Indira Gandhi duq Gandhi isku joog loo soo tolay waa kana ilaa hadda nin gaaban way dhulka soo dhaweey haye caafimaadkiina hay musdayan waa ku salaam baba khayr askoogna insha Allah haye intii dhimata Allah u naxariisto waaga hadas bari kharaab dooro alis dadayin nin walba ilmis akorsado ilma kursi midna rabaan ahey ilma kursi midna rabaan ahey iimaanka ala sugto ahey qalbigana ka shubita lagu dhowsado sa iso soco marti matid dadkaaga waaye dalkaaga waaye intii oo dhimati Allah u naxariisto qaraabada noogu salaan safarkaaga wax yara ka haray ilaahay idinkiis safarkaagana mukulaal dhaleeso Allah kaaga dhigo safarkaaga mukulaal dhaleeso jirkay waaya ya Saciid jawmi waho lama kun baalweyn tacbaani hadin tuuro horaanka gashaa nin maxaa u qaadatay dhahay ma jiro hadin kulli qaato raaliya ligiyahay maxaa yeelay dadkayga ilaahay ii maceeyay Saciid waani salaam baba waa kana xornimo dalkaaga ku haysataa xornimo iyo sharaf dadkaaga ku haysataa iyo dalkaaga Saciid wax lagu sheegay shuruud oo bax shaki yaqiina karoon Saciid waa kana ilmihii yaraayeen waaye iskoolay ka yimideen qaar iskoolay u socdaan wala kala kharaabo haya wala kala danayso haya xamar waatan waagi waa bariyay shaqa loo kala hay hadii alla ku run yahay nin walba waxa isku jira ilaahay oo khayr isi ilaahay oo naafi ilaahay oo nakal cafi ay arinta maru haysa maxaa yeelay shan lagu dari tuman le waaye mooska waxa loo fiiqi ina haanid lagu cuno mooska waxa loo fiiqi ina haanid lagu cuno usoo la fiiqin ina la cuni karin markii la ogaadi waxa la kasi in la fiiqo maxaa yeelay nabadda aana macaan waaye Saciid dad badana dhinteen dad badana dhaawacmeen dad badana wax beeleen dad badana barakaceen dad badana bad ku dhinteen dad badana sacara ku dhinteen Saciid waxa la sheegay ma jiro Saciid ala sabro Saciid dalkiyani baahan aqoon yahankii en suxufiyiintii hadii alla ku run yahay in dheer garadkii hooyooyinkii dhalinyaradii dalkiya idin baahan dib u dhisaal idinka baahan yahay maxaa yeelay Muuse Shaah iga dhiib معو هاشك إسي ماحي كوستر إسار ما نبوليو إجي محي الدين ألف كان ما دي قام إسكبار مرسل إيه مع بلاي حاجياش متكود أوت معرفتين مدينة مصعدة أما ميل أنكو شاك مسك دير تعمبولو إيه بنالك جلي إن أمانت نيرانو مهيرد نونو قن ميسو محايلي مستقبل على الروا إيه رجع موقن كريسو مريهد لعنايو مصاريف تعرورتا مقدي بايكو جرتا مرشو إيه مدحسار محايلي إيه لا ليهي abtiyo heesimo waa la yahay isku diin isku dal isku dad ala yahay waxa ma leenahay marka waxa soo dhan been man ka sheegayna dalka waa ogtiin maantadan dada geedo korkooda bahalo la saaran dada masas la hooyda dada hawar dugaaga daras mooday dad baa hawar dugaagta daras mooday aan la war laga haynin aan loo danqanaynin loo naxaynin loo baqaynin xili aan isdagaalno ma joognaa ma la taagan yahay xili la buunbuuniyo dawladda iyo maxaakiimta oo la yiraahdo waa isdagaalayaan waa isdilayaan xili la yiraahdo ma joognaa dalka haloo naxo dadka haloo baqo Allah laga cabsado
ودبتوني إحي توان سنو أن كجرني حرق جيد أن وجد لهين لحي توان سنو نولشين سيهد ولا أوكي هاي سوماليي ميل والبدوني دقود كذا كجوكتين سي تحذر له وفيريا وعيا واحد دلكين قودي هي سكسعدا باخيو ازدوجوك أنا سو سارا باخيو ازدوجوك الله وعونايو ان دنيرت الصوماليات عرورت الصوماليات هويدا الصوماليات ويلك الصوماليات ما كسنت او ديواتدا كسوغان لوغو عونايو maxaa yeelay laba maroodi dhul doog leh haday ku sii diriraan coos waa nasiib daradiisa dadkana sidoo kale waaye hadii loo danqan waayo loona diirnixi waayo beenkooda leesku dilo dhaxdooda leesku dagaalo dabar go ay ku sigtaan guul daray la kulmaan waxay dhaxlaan dismoraale nawad ii deganaasho dalkeena hooyo macaan in lagu soo dhaxdawaalo diid mo ii cagajiid iyo dib u dhacyaan laga muujin daraskii kala guuray isu soo dumidoodii dib isu waafajintoodii oo nabad daadiinteeda yaan lagu darin xaalad kale oo in nabad door ku lahayn yaan la isku dayin guul daradii yesterday mar labaad dib in loo unka maanta maxaa yeelay daar jasuurka horgeey dulmi khayaana ku daab damac hanweyni ku biiri marti digloo ku casuun dibcadda doora la jiifi waa culees la dul saaray hor yaan loo durkin waaye dib yaan loo noqon waaye lugaha oo dabran le ala daran dooriya waaye isdabir future miya dadka dhaxgal adeega miya dawarsi tujaarad miya iga soo wardoon wax siisma miya ganacsiga damaanada waaye adeegan isdulsaarka noloshan isku duubko baaqiga dib loo celineenin sicir bararka iyo kunka duuga sida loo dhaxdawaashto waa dabeecad naqaane dadka yaan la wareerin diin leeyaan la isku sheegin laf jaban yaan la isku duugin masaan dilneen yaan geed la isku saarin damaca yaan la tixraacin ee daacad aloo la yimaado dalkii iyo dadkii loo wada dhaartay dar alla ha loogu adeego maxaa yeelay shalay daraad wax leesku khalaafay oo shalay dib loogu heshiiyey maanta in leesku dagaalo horay noo bahdileen wax dhisoo dumiyow dabeecadii shalay waaye dadka yaan la wareerin diin leeyaan la isku sheegin laf jaban yaan la isku duugin masaan dilneen yaan geed la isku saarin damaca yaan la tixraacin ee daacad aloo la yimaado dalkii iyo dadkii loo wada dhaartay dar alla ha loogu adeego شيطان نطلع بدا من شرحات ومبانا شي حقيقي وي شعبي روز كتوتن او شكر كيس خبتايو شنتي سراتو كايو شكي ناس كلاقادو أديغا كشكي شي أنا عريش لقو أنا عريش بعو أنا عريش شوكولاتي أنا عريش عترولي أنا عريش بشبلو أنا عريش لقلو أنا شاب القلو إنا لو كلا شيرو شكالي سكراعو أديغا كشكي شي شينكا عنكا عبلايو شاكا كيو مدايو شنقاني سوارت مانتا شنقاني I'm sorry شنقاني I'm sorry شنقاني سوارت مانتا بوندير سوارت مانتا ورديقلي سوارت مانتا تياتر سوارت مانتا
Muqdisho I'm sorry Muqdisho theater I'm sorry theater I'm sorry masrah I'm sorry fananin I'm sorry Somalia I'm sorry Somalia I'm sorry Shangani I'm sorry شفاع الله شنقاني هاي سوري شنقاني هاي سوري شروك خاطة ديسا شنقاني شنقاني شايلة فكري ديسا شنقاني شنقاني شلنا مرايا دينا شنقاني شنقاني خبيالة كاشر فوشي شوشكا شفاع الله شنقاني هاي سوري شنقاني شكري يا الله شكري يا رحمن شكري يا رحيم شنقاني I'm sorry شنقاني I'm sorry شكري يا الله شكري يا رحمن شكري يا رحيم شنقاني I'm sorry شنقاني I'm sorry شنقاني I'm sorry شنقاني I'm sorry شباك كوما نولا شنقاني شنقاني شريرة فونا كده شنقاني شنقاني عروبة شتا ليلة شنقاني شنقاني ننكي شهودة مانتا الماك سوشو بميسو شنقاني I'm sorry شنقاني I'm sorry شكري يا الله شكري يا رحمن شكري يا رحيم شنقاني I'm sorry شنقاني I'm sorry شكري يا الله شكري يا رحمن شكري يا رحيم شنقاني I'm sorry شنقاني
kortay tiyaatar I'm sorry sheekoy mani sheekeen kara sheekoy sheekoy mani sheekeen kara sheekoy sheekoy mani sheekeen kara hawartaa ninkii qabo oo asagana ku dhali hawartaa ninkii qabo oo asagana ku dhali maxaas ku yahay ide ide qurya adeer ide 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 qurya adeer ide 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 qurya adeer ide hawartaa ninkii qabo oo asagana ku dhali hawartaa ninkii qabo oo asagana ku dhali maxaas ku yahay ide ide qurya adeer ide 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 qurya adeer ide 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 qurya adeer ide sheekoy mani sheekeen kara sheekoy sheekoy mani sheekeen kara sheekoy sheekoy mani sheekeen kara sheekoy sheekoy mani sheekeen kara adooga walaalkiis hawartaa dumaashigeed adooga walaalkiis hawartaa dumaashigeed maxaas ku yahay ide ide qurya adeer ide 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 qurya adeer ide 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 qurya adeer ide adooga walaalkiis hawartaa dumaashigeed adooga walaalkiis hawartaa dumaashigeed maxaas ku yahay ide ide qurya adeer ide 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 qurya adeer ide 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 qurya adeer ide 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 qurya adeer ide
dhammaanteed isma dhaantale waaye soomaalida dhammaanteed isma dhaantale waaye dhedeg iyo laboodkeena dhalinyariyo waayeen dhibaatada dagaalada dhammaan waana saameeyey allahayow dhulkeena ka dhig goob amaana allahayow dhulkeena ka dulqaad dhibaatada soomaalida dhammaantood aloo dhaaf dunuubtooda wadhalani walaalayaal afiya dhuuxaane dhuliisa sinaane dhigeenaale isku dhaqa makala dheeraa karne duruub soomaaliye nawadaha dhaqan gashe baloo dhamee dhadhamayeeshaale baloo dhamee dhadhamayeeshaa bushood wixii dhacay waa dhehe dhibaatada joojiya dhameeya khilaafida sokeeya badbaadiya wadhalani walaalayaal lafiya dhuuxaane dhuliisa sinaane dhigeenaale isku dhaqa makala dheeraa karne duruub soomaaliye nawadaha dhaqan gashe baloo dhamee dhadhamayeeshaale baloo dhamee dhadhamayeeshaa bushood wixii dhacay waa dhehe dhibaatada joojiya dhameeya khilaafida ka sokeeya badbaadiya wadhalani walaalayaal lafiya dhuuxaane dhuliisa sinaane dhigeenaale isku dhaqa makala dheeraa karne duruub soomaaliye nawadaha dhaqan gashe baloo dhamee dhadhamayeeshaane baloo dhamee dhadhamayeeshaa bushood wixii dhacay waa dhehe dhibaatada joojiya dhameeya khilaafida ka sokeeya badbaadiya wadhalani walaalayaal lafiya dhuuxaane dhuliisa sinaane dhigeenaale isku dhaqa makala dheeraa karne duruub soomaaliye nawadaha dhaqan gashe baloo dhamee
bulshooy ka fogaab dhaliishaan ku dhahaa bulshooy ka dheeraa hurmaataan ku dhahaa bulshooy soo dhaweey wanaagaan ku dhahaa bulshooy wadhalani walaalayaal lafiya dhuucaane duliisisinaane dhigeenaalees ku dhaqa ma kala dheeraa karne dhurow soomaaliye nabadaha dhaqanmise wadhalani walaalayaal lafiya dhuucaane duliisisinaane dhigeenaalees ku dhaqa ma kala dheeraa karne dhurow soomaaliye nabadaha dhaqanmise أنا سرف ملي باقي سوعلين ملي بزنس كان نور ملي كان عسير دي عوال ملي بس أنا سرف ملي باقي سوعلين ملي كاسانو بغانيغا هو بدان غلا كاسانو بغانيغا Patangala Balwinta yang laga pojenin Paladukso 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 Kun kawa bestis Bulshada kushamunti وفسا كدعي كن كوابستيس برشدا كشمونتي وفسا كدعي كاسانو بغانيغا وابوا بدانغلا كاسانو بغانيغا وابوا بدانغلا yang laga pojenin Paladukso 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 Lala di balwen talawayo Lahat kalo bedele sa mahayno Sukyada ya wah kabayaya Kasano Puganiga Buwa Patangala Kasano Puganiga Buwa Patangala
bojeenin wakuwa patangala tanu buganiga wakuwa patangala balwinta yan laga bojeenin paladukto 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 Bismiska nur male ganacsiga biya awal male betada sarif male baqi soocelin male Bismiska nur male ganacsiga biya awal male betada sarif male baqi soocelin male Walkasanu buganiga wakuwa patangala Walkasanu buganiga wakuwa patangala Balwinta yan laga bojeenin paladukto 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 kun kawabesi kushaga kushamundi ofisa kudai kun kawabesi kushaga kushamundi ofisa kudai Kasanu buganiga wakuwa patangala Kasanu buganiga wakuwa patangala Balwinta yan laga bojeenin paladukto 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 lacalaadii baalweynta la waayo lacagka loo bedelaysa mahayno suuqyada yaa wax ka baayacaya warkaasaanu bogaaniga wakuwa patangala warkaasaanu bogaaniga wakuwa patangala balwinta yan laga bojeenin paladukto 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 lacalaadii baalweynta la waayo lacagka loo bedelaysa mahayno suuqyada yaa wax ka baayacaya warkaasaanu bogaaniga wakuwa patangala warkaasaanu bogaaniga wakuwa patangala balwinta yan laga bojeenin paladukto 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 Kurparti bagamunde waaye besadana kuna uyer kuna uwen ababo warkasanu buganiga wakuwa patangala warkasanu buganiga wakuwa patangala balwinta yan laga bojeenin paladukto paladukto paladukto
besadana kuna uyen ababo kasanu buganiga kuwa badangala kasanu buganiga kuwa badangala balwinta yalaga bojenin saya dukto apapun magaalooyinka asaagaaga ah waa ka hirti laakiin alxamdulillah maanta sidii shalay waa ka fiican tahay maka almukarrama aan maroo hayna hadda calooshaada dhan dhaawaca ku yaalo dhiig bax aad la liidataa dhinac kasta waa lagaa goosti meel walba waa lagaa bajiyi meel walba waa lagaa baduujiyi xaqna uma leheen xamar in sida lagu galo laakiin I am sorry xamar waa ka xumaay xamar in sida lagu yeelo laakiin maacaleesh sawarkaaga aa ku guulaysay laamiyadaadii lo aa ku fikirooso lo oo dismoraal aa ku fikirooso oo fahmada dhanka dhammaatay oo baako iyo bac cunooso iyo bir cunooso lo le baaka iyo bac iyo bir cunayso wax ii dhimanay ahayd xamar sawarkaaga waa ku guulaysatay waana ku guulaysaysaa ilaahay idinkiis niyadaada fiicnay hooyadii dalkaa tahay xaruntii dalkaa tahay ma lagaa maarmaayo xamar insha allahu tacaalaa guusha adigaa iska leh gudcurka waa ka xorooweysaa iftiinaa kuu dhalanayo maka almukarrama oo cidla aan maroo haynaa hadda oo eri carbeed oo tiibasha qabo iyo lo oo baaka iyo bur iyo bir cunayso oo iida naftirkeeda fahmada dhanka dhammaati iyo dameer oo kasiiti baabow oo ku dheedheeli oo usigane meel as wax ka bilaabo la waa ka xunnahay maka almukarrama waxaad ahayd waxaad ahayd jid wanaagsan maka almukarrama waa ka xumahay dhibaatada ku soo gaartay xaq uma lahayn in sida lagu galo in sida lagu rafaadiyo xaq uma lahayn shaqaalahaan joognaa jidka shaqaalaha meeshan waxay ahayd faras magaalada ahayd meeshaanay halka dukaanka furnaay halka badeeca tiili halka baabuur socoti dhulka shaan baa lagu dhaqi jiri waxaa lagu dhaqi jiri wax carfaayo barafuuna lagu bilbili jiri maka almukarrama sawar dulqaado waa guulaysahay ilaahay idinkiis dhibka dheef lee ka dambeeyo ciriiriga waasac lee ka dambeeyo gudcurka iftiin lee ka dambeeyo gaajada dhirig lee ka dambayso ciilka farxad lee ka dambayso maka almukarrama wadda waxaad ahayd aan laga maarmaynin waxaad ahayd wadda aan la hoynin waxaad ahayd meeshii lisugu imaan jiray xilli kasta haween iyo maalin shaneemo soomaali aan joognaa hadda oo shafka laga tumi shaneemo soomaali oo shafka laga tumi oo la babaji oo la kharaawaysanin oo si fiican loo akili aan joognaa shaneemo soomaali waa salaaman tahay Soomaaliyeela beledka waa loo nixi waayey magaalada waa loo baqi waayey caasimadda waa la ciseen waayey
laakiin alxamdulilah shalay maantay ka fiican tahay maantana beriyay ka sii fiicnaanaysaa haddii ilaahay yidhaahdo maka almukarama maa siday ahayd maka almukarama maa siday ahayd waddadii macriifada ahayd maa sida ahayd waa kana ilmo oo waalidiintooda waxba haynin aa iskaa lulugeeyo hayo oo subaxdan inay soo quraacdeen in kale ilaahay og yahay inay qadeehayaan in kale ilaahay og yahay waa kana eri'ido oo shoog ku dhacay eri'ido oo shoog ku dhacay oo yaaban oo wana hurdoonin oo wana soo jeedin eri'ido waa salaamantihiin sabra le ilaahay idinkiis waa la moodaa eri'ido waa salaamantihiin eri carbeed waa salaamantihiin landrover waa salaamantahay adigana leebkii kugu dhacine ilaaha u qabtaa ilaahay aa ku badbaadiyo ilaahay aa ku badbaadiyo waa kana daarihiisaana loo babaji bulukeeti ma loo naxariisanin shub shafkaa laga tumi dhagaxa laga tumi bir waa la baduuji waa la rafaadi waa lisrafaadi waa kana arka wixii dhacay arka dadkii u dhashay caasimadda dadkii ku soo barbaaray dadkii muddo dheer deganaay iyo dadkii xali yimideenba oo dalka aan ku sugnayn oo dunida daafeeda ku kala baahsan a arkaano fariinta caasimadda ay soo gudbinayso eyna waa kuwan ey cambaara ku dhacdi iyo islaama yaaban waa kuwan oo ku yaaban eyga cambaarada ku dhacdi oo caafimaadkiis xun yahay oo cunto la'aan ku dhacdi oo raabiyi qabo ey raabiyi qabo oo dadka wareeri waa kana islaan iidaba maskiin ah oo xaalkeed ilaahay og yahay aabacmadow wax oo keentay waa kana kharaaba loo keeni muraadkeed allah u sahlo waa kana subax walbana waa u keenaan saanay oo u keenaan haddii kale rafaaday u dhima lahaayeen maxaa la sheegaa dad iyo dunyo dhibka waa wada gaari dad iyo dunyo dhibka waa wada gaari ilaahayow noo soo gargaar ilaahayow noo soo gargaar ilaahayow noo soo naxariiso ilaahayow noo soo naxariiso ilaahayow noo soo gargaar halbowlihii waddanka aan joognaa waddadii dabkaan joognaa waa kana oo cidle eh oo saan u rafaadi waa kana kharaa lagu iibiyo haya hortaa u soco bashiir hortaa u soco waa kana dad la'aan waaye cidla waaye dadkii deganaa jireen waa ka guureen dadkii deganaa jireen cabsiyay oo u guureen dadkii deganaa jireen jufay oo u guureen dadkii deganaa jireen yaa tahay ay oo u guureen dadkii deganaa jireen qabyaalad in loo waxyeelay oo u guureen waa kana dad masaakiin aha maanta ku nool dhagax iyo baaka alisku rakabi bulukeeti iyo good alisku tolay haddii alla kuuroon yahay shub iyo bir alisku dhajiy waxaan islaheen alisku keeni waa kana waddadii maka almukarama saanay u rafaadsan tahay waa kana hoteelkii xaashi weheliye waa kana hotel weheliye waa kana hotel weheliye maanta dad masaakiin ah aad degan cidla waaye dad male magaaladii cidla waaye aawi dadkeeda xamar aawi dadkeeda caasimadda aaway dadkeeda muqdisho aaway dadkeeda muqdisho aaway dadkeeda xamar aaway dadkeeda intay u kala dudeen kulligooda ma dhammaadeen intay aadeen aawi muqdisho dadkeeda caasimadda aawi wehelkeeda baabuur le ordow haysaa baabuur le isdaba dhaafu haysaa dad uma jeedno xoogaa markaa socotid waxaad arkaysaa dad dismoraal ah oo cid ka warqabta jirin oo maanta oo korkooda lagu tartamo hayo korkooda lagu gorgortamo hayo alla mas-uuliyiinta ma arkaayaan oo dhibka yaalo ma maqlaayaan oo dhibaatada taagan ma u baqaayaan oo dadkooda iyo dalkooda iyo degaankooda maxaa sida loogu daawanaa caasimadda aabe dadkeedii dib maa loo soo celiyo aabe degaankii dadkiisii aabay aabe caasimadda dadkii camirayay aabay aaway muqdisho wehelkeedii aaway
maxaa sida loogu galay maxaa sida loogu rafaadsaday sharka cuudu billaahi qabiilow shurugaaga iyo shartaaha ku raacdo shaydaan inaad waxba dhaamin sharaxaad uma baahna shay xaqiiqi ah waaye shacbigu oo isku toosan oo shuqulkiis qabsahayo shantii salaad dukahayo shaki inaas kala qaado adigaa ka shaqaysay anaa reer shuluqow anaa reer shabacow anaa reer shabshablow anaa reer shukulaati anaa shaal dhangalow inaa loo kala sheero oo shafka leeska garaaco adigaa ka shaqaysay shiinka aan ka hadlaayo sheeka kii u mudaayo muqdisho soo arag maanta muqdisho ayim sorry golihii shacabkaan maruu haynaa sayidkaan maruu haynaa beertii daraawiishtaan maruu haynaa baar bulshaan maruu haynaa waa kanaa sida waaye cidla waaye aabi dadkeedii xamar aabi dadkeedii degaanka aabi dadkiisii caasimadda aabi dadkeeda muqdisho aabi dadkeeda dhibaataa dhacday ilaahayow noo soo gargaar ilaahayow dalkeenna iyo dadkeenna ilaahow u gargaar caasimadeenna ilaahow u gargaar waa kana masjidka isbahaysiga islaamka masjidka isbahaysiga islaamka waa kana dhowr jumco waa lagu dugtay alxamdulilah salaata ciid waa lagu dugtay alxamdulilah isagoo wax badan ama waqti dheer aan lagu dukanin alxamdulilah rabbialcaalamiin dhib dheef lee ka dambaysaa cariiri waasac lee ka dambeeyaa gudcur iftiin lee ka dambeeyaa gaajo dhereg lee ka dambayso cudur caafimaad lee ka dambeeyo colaadda nabad lee ka dambayso waa kanaa dhagax tuur taaladii dhagax tuur oo tilmaanta ahayd oo taariikhda lahayd maanta tunkeed wax ma saarna mar horaa la taraarixi gobolkii korka fuuli waa laga degsada meel la geestina ilaahayaa og war ma u hayno waa kanaa baabuur rar sugaayo ena taraa ii rimoorkiis oo rar sugaayaan waa kuwan ii kana rarka allah u sahlo magaalada maanta dhir iyo doog aawaheel u ah wax kale faraha ma ku hayso meeshii martid geed lee arkaysaa geed oo haayo dhir qoslayso lee arkaysaa ilaahay idinkiis xamar ilaahay aa u soo gargaaro alxamdulilah rabbialcaalamiin kollay maanta edeb daradii shalay ma jirto qofkii dad dilo waa la dilaa qofkii wax hado waa la qabahaa kala sooc kala saar ma jiro laakiin magaalada dhibaato weyn inay soo gaartay markhaati cad waxaa u ah meelaha qaarkood markii la maro waxaad arkaysaa dad la'aan waxaad arkaysaa dhaqdhaqaaq la'aan waxaad arkaysaa cidla waxaad arkaysaa doog ku baxay meela munaasib ahayn meela munaasib ahayn meela munaasib ahayn hortayna noo socodsii سرس ملي باقي شعل الملي الجيش كان نور ملي كان عتيق بي عوال ملي بيتنا سرس ملي باقي شعل الملي وكاسانو بغانيغا
Soomaaliya waxaana ku nool dad aad u fara badan oo badankood ka kala yimid gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. magaalada Boosaaso subaxii marka aad soo kacdid dariiqyada waxaad ku arkaysaa dad dhalinyaro ah oo markaa rooti iyo shaah ku cabaya meelo ay fadhiyaan gabdho iyo qaxooti ah oo halkaasi wax ugu kariya. si weyn baad u dareemaysaa markii aad soo dhexmartid magaalada Boosaaso dhibka iyo daalka iyo shaqo la'aanta ka muuqda dhalinyarada ka soo carartay gobolada koonfurta Soomaaliya ee halka u joogta inay uga sii gudbaan dalal kale. ma ahan meesha ay doonayaan inay uga gudbaan dalalka Yurub iyo kuwa kale balse waxa ay doonayaan inay naftooda ku halaagaan oo ay mar uun kaga baxaan dalka Soomaaliya meel markaasi dhaanta noloshii ay ka yimaadeen iyagoo badda u maraya dabeetana u diyaar garoobaya dhinacaas iyo dalka Yemen. wiilkan waxa uu ka mid yahay qaxooti reer Itoobiya ah oo iyana ku nool magaalada Boosaaso waxaana uu ka hadlayaa dhibaatada haysata. Soomaali kaliya ma joogto magaalada Boosaaso oo ka soo cararay dalkoodii ama goboladoodii balse waxaa jooga dad fara badan oo qaxooti ah oo ka yimid dhinaca iyo dalka Itoobiya. dhismayaasha ay degan yihiin dadkan soo cararay ee halka ku sugan ee qaxootiga ah ayaa waxa ka muuqanaya dhibaato fara badan. dadku waa laga dareemayaa saboolnimada iyo nolosha aad u liidata. badankood dadkani waxa ay ka soo carareen gobolada koonfurta Soomaaliya. caruurta iyo haweenka ayaa ugu muruga badan. marka aad dhexmarto waxa ay kaaga sheekeynayaan nolosha halkii ay ka yimaadeen iyo xaaladii adkeyd ee ay soo mareen intaba. si kastaba arinku ha ahaadee jawiga magaalada Boosaaso ee ay ku nool yihiin dadka ka soo cararay gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya sidan ayuu xaalkoodu u eg yahay. si kastaba ha ahaatee xaalku waxa uu yahay mid marba laga dareemayo murugada dadkan dhibaataysan. qaarkood waxay isku dayaan in ay markaasi sameeyaan goobo ay markaasi ganacsi ku doontaan. hase ahaatee dowlad goboleedka Puntland oo dadkaasi iyadu markaa la socota xaaladooda ayaa waxa ay wax weyn ka qabataa oo inta badan isku dayda inay ka hortagto kooxaha halaaga ku sii horseedaya dadkaasi ee markaa ku ridaya dhibaatooyinka. ku-xigeenka madaxa dowlad goboleedka Puntland ayaa ka hadlaya dhibaatada jirta wuxuuna ku tilmaamayaa in loo baahan yahay dowladaha Eritrea, Itoobiya iyo wadamo kaleba in ay ka caawiyaan Puntland dhibaatada halka ka jirta. dadkan waxa uu leeyahay waxa ay ka yimaadeen dhammaan wadamada dariska ah waa laga helayaa. Itoobiya iyo Eritrea dad ka socda ayaa jooga magaalada Boosaaso oo dhibaataysan. dadka badankood laakiin waxa ay ka yimaadeen ayuu leeyahay koonfurta Soomaaliya. waxaan ku dadaalnaa oo aan wax badan ka qabanaa sidii aan uga hortagi lahayn dhibaatada taagan. dadka soo barakacay ee jooga magaalada Boosaaso waxa ay isku dayaan inay abuurtaan nolol laakiin kulligood waxay u muuqdaan kuwo si ku meel gaar ah u jooga magaalada Boosaaso oo raadinaya si uun inay magaalada uga baxaan. dekada magaalada Boosaaso oo ah goobta ugu mashquulka badan ee shaqada ay inta badan ka helaan dadka ka soo cararay gobolada kale ee Soomaaliya ayaa waxa ay yimaadaan dekada si ay uga qayb qaataan howlaha raridda iyo dejinta ee dekada ka socda. hawsha xamaaliga ah ayay si aad uga shaqeeyaan dadka ka yimid koonfurta Soomaaliya iyo xitaa kuwa ka yimid dhinaca iyo dalka Itoobiya. dadkan waxa ay marka ay shaqaystaan u diyaar garoobaan inay halkaasi ka raacaan doomo ay wataan kuwo aan baqaynin oo markaa aan u naxaynin dadkan dhibaataysan ee mararka qaar badda ku daadiya. kooxahan sida idiin muuqda waxa ay yihiin kuwo markaasi aan ogolaan inay saxaafadda la hadlaan
sida uu ninkan odaga ah oo reer Boosaaso ka hadlayo wuxuu leeyahay ma ogola inay kooxahaasi saxaafadda la hadlaan si qarsoodi ah ayay dadka doomahan yaryar ugu guraan doontu waxa ay qaadaa tankeeda wax ka weyn markaas ayay dadka waxay u soo kaxeeyaan dhinacaas iyo dalka Yemen doomahan marka lagu soo xiro dekada weyn ee magaalada Boosaaso waxaa jira kooxo dalaala ah oo dadka gudaha jooga ee doonaya inay tahriibaan iyagu markaasi qarsoodiya ku diyaariya doontu way ka dhaqaaqaysaa dekada weyn meel xeeb ay tagaysaa sida ayaa dadka lagu qaadayaa magaalada Boosaaso oo sanadihii ugu dambeeyay iyadoo ay ka muuqdeen horumar dhinaca dhismaha ayaa dhinaca kale waxa aad u buux dhaafiyay dadkan tahriibtoonka ah ee ka imanaya koonfurta Soomaaliya iyo wadamada dariska la ah Soomaaliya intaba dadkan aad bay magaalada u buux dhaafiyeen waxaana ay degan yihiin meelo gaar ah oo ka tirsan magaalada Boosaaso xalku si kastaba ha ahaadee Boosaaso dadka degani waxay mar walba dhagahooda ku maqlaan dadka ka baxaya deegaanadaasi in ay dhibaateeyaan daawadayaal waxaanu inta kaga gudbaynaa nolosha Soomaalida magaalada Boosaaso marka ay ka soo carareen gobolada koonfurta ay ku noolaayeen iminka waxaan u gudbaynaa doomaha iyo dhibaatada ka soo gaarta iyo noloshooda dalka Yemen dawladda Yemen waxa ay leedahay ciidan ilaaliya badaha sida aad daawanaysaan ciidankan waxa ay aad u waardiyeeyaan xeebaha dalka Yemen inaanay soo gelin doomo ama maraakiib aanay la socon dawladda Yemen si kastoo ay arintu tahayba waxa mararka qaar dhacda iyagoo ciidankaasi aan ogeyn in xeebaha dalka Yemen lagu daadiyo dadkii qaxootiga ahaa ee laga soo qaaday magaalada Boosaaso arrimahaasi markii ay dhaceen sida idin muuqata ciidamada ilaalada xeebaha dalka Yemen waxa ay mar walba ku dadaalaan sidii ay u ciqaabi lahaayeen una soo qaban lahaayeen kuwa ka mas'uulka ah inay si sharci darro ah dadka qaxootiga ah ku keenaan dalka Yemen saraakiisha ilaalada xeebaha waxa ay sheegaan khatarta markii hore ay iska waardiyin jireen inay ahayd dhinaca hubka oo markaasi loo tahriibin jiray dhinaca Soomaaliya sargaalkan waa ninka haysta ilaalada xeebaha dalka Yemen waxa uu leeyahay markii hore waxay ahayd hawsheenu inaanu aad ula dagaalano kooxaha hubka tahriibiya ee u gudbiya Soomaaliya hase ahaatee iminka waxa aan la dagaalamayno oo aanu dhibka weyn ku qabno waa kuwa aan u naxaynin dadkooda ee soo kaxaynaya badahana ku daadinaya kuwaas waa kuwo markaasi u baahan in wax badan laga qabto kuwa u baahan in la ciqaabo saraakiisha xeebaha dalka Yemen ilaalisa waxa ay iminka ku dadaalayaan sidii ay wax badan arintan uga qaban lahaayeen kadib markii dad badan oo kumanaan Soomaali ah oo dhibaataysan ay markaa dhibaato xumi ka soo gaartay xeebaha dalkooda kuwaasi oo doomihii ka soo qaaday magaalada Boosaaso kooxihii watay ay badda ku daadiyeen dawladda Yemen
waxay xoogga saartay in aad loo waardiyeeyo xeebaha sida uu sheegayo sargaalkan ah ninka ugu sarreeya ilaalada xeebaha dalka Yemen. waxa uu leeyahay mar walba waxaanu iminka xoogga saaraynaa dadkaasi sidii loo badbaadin lahaa. iminka waxaa bilaabanaya doomihii habeenka soconayay muddada 40 saacadood ee badda Boosaaso iyo Yemen u soo socday. dadkan waa tahriibayaal Soomaali u badan inkastoo ay ku jiraan kuwo kale oo Itoobiyaan ah. xaalkooda aad buu u liitaa. inta ay doonta saaran yihiin qaarkood waa la garaacaa, qaarkood waa laga tuuraa badda, waxaana lagu qasbaa mararka qaar in badda iyadoo aan dhoweyn xeebta laga tuuro oo ay iska tuuraan. waxay u badan yihiin dad da' ah. Allah ha u naxariisto dad fara badan oo tahriibayaal Soomaaliya oo laga soo qaaday magaalada Boosaaso oo kooxihii ku soo qaaday doomaha aanay u naxin ayaa halkan ku qurbeelay oo dhintay. badankood waa dadka ka yimid koonfurta Soomaaliya inkastoo ay ku jiraan dad iyana ka yimid dhinaca iyo dalka Itoobiya. meydadka dadkan ayaa waxay u muuqdaan kuwo mararka qaar u muuqda in doonta lagu ciqaabay oo lagu xiray. qaarkood waa la garaacay, qaarkoodna dhibaato kale ayaa loo geystay. dhalinyaro, haween iyo caruurba way isugu jiraan dadka halkan ku dhintay. marka ay baddu soo tuurto ayaa saraakiisha Yemen iyo dadka Soomaalida ah ee meelaha ka agdhow waxa ay yimaadaan xeebaha si ay mar uun u arkaan xaalka dadkan badda lagu soo laayay. xaalku aad buu ugu sii murug badnaanayaa dadka reer Yemen. waxa ay la yaaban yihiin kumanaanka ku dhimanaya badda oo haddana ay soo socdaan. ninkan waxa uu ka mid yahay saraakiisha ilaalada xeebaha dalka Yemen, waxaana uu ku dadaalayaa sidii uu dadka Soomaaliyeed u fahamsiin lahaa dhibka. waxa uu leeyahay xaalku waa sida aad u jeedaan. marka meydadku ay yimaadaan waxaan u yeernaa dadka Soomaalida ah. meydadkii wixii la aqoonsan karana waa la aqoonsadaa, wixii kalena waa la duugaa. marka aad bay u xun tahay xaalkan. waa inay Soomaalida iyo madaxdooduba gartaan dadkooda sida ay u baaba'ayaan. halka ay ka soo baxayso doontu waa Boosaaso, waxaana ay imanaysaa dalkaasi Yemen, waxaana ay u soo socotaa sida la sheegay muddo 40 saacadood ilaa 36 saacadood. ciidamada ilaalada xeebaha dalka Yemen aad bay u howlgalaan. haddana kooxaha wax dilaya ee dadka dhibka u geysanaya ee soo qaadaya tahriibayaasha ahi way ka dhuuntaan ciidanka, laakiin markii la qabto waa la ciqaabaa ayuu leeyahay sargaalkan isna ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha. doontan waa mid ka mid ah doomaha qalibmay ee dad fara badan ay ku dhinteen oo ay soo qabteen ciidanka ilaalada xeebaha dalka Yemen. kooxihii watayna xabsiga ayaa loo taxaabay inkastoo kooxahaasi ay laayeen oo ay dileen dad fara badan oo Soomaali fara badan ayaa iyana dhib fara badani uu soo gaaraa sida caruurta, dhalinyarada iyo dumarka intaba. sida idiin muuqata markii uu qofku 40 saacadood uu badda saarnaado uu biyaha badda cabo sidan ayuu noqonayaa. cudurro kala duwan ayaa ku dhacaya. qaarkood waa ay dhaawacan yihiin. dhibaato xoog leh ayaa soo gaaraysa. saraakiisha Yemen waxa ay ku celcelinayaan waa in madaxda dadka Soomaaliyeed ay gartaan oo ay u badbaadiyaan si dadkooda ay u badbaadaan. waa in wadankii xasilooni lagu soo celiyaa. xaalka Soomaaliya waa sidan. qaar waa qaxooti, qaarna waa ay leedeen, qaarna xanuuno kala duwan ayaa ku dhacay, iyadoo Soomaaliya xaalkeeduna uu u muuqdo iminka mid aan rajo wanaagsan lahayn. madaxdii baa isku haysata, shacabkoodiina sidan ayuu xaalkiisu yahay. caruurta yaryar iyo dumarka iyo dadka dhalinyarada ah iyo waayeelkuba
tahriibku waa ay soo wada galeen waayo qaarkood waxa ay leeyihiin waxaanu ka soo cararnay dhibaatada xoogga leh ee ka jirta koonfurta Soomaaliya magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku dhow iyo guud ahaan Soomaaliya koonfurteeda iyo bartamaheeda sidan ayaa loo galayaa dadka soo raaca doomaha oo doonta korkeeda ayaa lagu ciqaabaa ilaa marka dambe lagu qasbo qofku inuu doonida iska tuuro marka dhibka ugu badan waxa uu soo gaaraa ayuu leeyahay sargaal ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha dalka Yemen dadka dhalinyarada ah marka uu badbaado ayuu haddana qofkii u dhimanaya mararka qaar cuduradii uu kala soo kulmay doonta korkeeda sidan ayay u murugaysan yihiin dhammaantood xaalkoodu waa mid aad u yaab badan wiilkan dhalinyarada ah ayaa hadlayoo leh waxaanu ka nimid Boosaaso 4 maalmood ka hor sidee bay ahayd safarkiinii Boosaaso ilaa inta aad bay u dhib badneyd dadka doonta nala saarnaa ama na soo saaray aad bay noogu ciyaarayeen oo inoo ciqaabayeen ayuu leeyahay wayna garaacayeen ulbay nagu garaacayeen badankood waxay noqdaan marka ay doonta ka soo degaan ama ay u muuqdaan kuwa sida loo garaacay ama naxayay kuwa waalwaalan ama kuwa sidan u garaacan wuxuu ka sheekeynayaa dhibaatada ku soo dhacday intii doonida uu saarnaa inkastoo isagu uu badbaaday dadkii kale ee la socdayna qaar badan oo kamid ah ay dhinteen marka wuxuu leeyahay waxay wataan hub qaarkood markaas ayaa marka aad isku daydid in amarkooda diidid ay xabad kugu dhufanayaan dhaawacyo ayaa isaga laftirkiisa ka muuqda oo markaa muujinaya in doonta korkeedii lagu garaacay waxa aanu ka soo tagnay waxay ahayd shaqo la'aan waxbarasho la'aan iyo dhibaato gobolladeennii koonfureed ku dhacday marka waxaanu ka codsanaynaa wadamada carabta sida wadanka Yemen oo aanu iminka dhibkan ku soo gaarnay inay na caawiyaan oo waxbarasho na siiyaan si ay mustaqbal wanaagsan noo ifiyaan inaanu shaqaysan karnana ay noo ogolaadaan marka waxaanu u baahanahay iskuulaadka iyo waxbarashadeennii jaamacadaba inaan helno maadaama wadankeenii iyo madaxdeeniiba ay sidan inoo galeen nasiib darradana ay dhalinyaradeenii ku dhacday aad iyo aad ayuu u murugaysan yahay wiilkan dhalinyarada Soomaaliyeed waxa uu ku celcelinayo waa inuu u baahan yahay waxbarasho iyo barnaamijyo kale horumarkiisa ka shaqeynaya markaa kadib ayaa waxaa xaalku uu noqonayaa mid yaab badan halkan waa mid ka mid ah goobaha ay markaasi dowladda Yemen ugu tala gashay inay degaan dadka qaxootiga ee Yemeniyiinta ah waxa caawisa dowladda Yemen oo qaxootigan sidii ay wax u heli lahaayeen ka caawisa hay'adda qaxootiga adduunka iyo qaramada midoobay sidan ayay u muuqdaan nolosha dadka Soomaalida ee dhibaataysan مسؤول كترسن قيبتن qaxootiyada ay degan yihiin ee dalka Yemen oo Yemeni ah ayaa ka hadlaya dhibaatada haysta Soomaalida waxa uu leeyahay anagu waxaanu u sameeynaa form ayaan u sameeynaa formkaas ayaa laga buuxiyaa qofka sawirkiisa ayaa lagu dhajiyaa waxa loo aqoonsadaa inuu yahay qof qaxootiya marka kadib ayaa qofkii waxa la isku dayaa in meel uu la dejiyo kadibna waxa laga diiwaan galiyaa kaamka cunnada uu ka qaadanayo sidaas ayaa halka la isugu geeyaa waxaanu ku dadaalnaa in qaramada midoobay ay dadkani caawiso maxaa dhalinyaro fara badan oo isugu jira rag iyo dumar ay ku dhibaataysan yihiin dalka Yemen waxa sidoo kale halka jooga dadkii da'da ahaa ee Soomaaliyeed ee u baahnaa in la caawiyo
waxaa halkan isugu yimid Soomaali fara badan waaba kuwii badbaadayay iyadoo kumanaan iyaga la mid ahna ay badda ku dhinteen. dowladda Yemen waxa ay isku daydaa in dadkaasi ay wax badan ka caawiso, laakiin sida sargaalkan uu leeyahay wax badan iyadaba ma caawini karto. Yemen waa wadan sabool ah. halkan waa meel kale oo ay degan yihiin kumanaan dad Soomaali ah oo qaxooti ah oo dowladda Yemen iyo qarabada midoobay ay iska kaashadeen. waxaa degan halkan 8,000 oo laajiin ah oo guryo looga dhisay, kuwa kale guryihii baa loo waayay. waxa ay degan yihiin teendhooyin iyo guryo ka samaysan cooshado. nolosha ay ku nool yihiin Soomaalidan ayaa ah mid aad u liidata. caruurtii yaryar ee Soomaaliyeed iyo dumarkii iyo raggiiba noloshan ayay ku nool yihiin markii wadankoodii dhibaato fara badani ay kala soo kulmeen oo ay markaa door bideen inay naftooda ku kharibaan. badda intan waa intii badda ka badbaaday. gabadhan Soomaaliyeed waxay leedahay caruur baan haystaa, dhibaataan ku jira, cunno fara badan ma helo, daawo fara badanna ma haysto. nolosha ay ku nool yihiin waa sidan. biyaha fayl baa loo galaa, goobaha caafimaadkana iska badaa. dadka oo dhan xanuun iyo dhib waxaa u sii dheer murugada ay wadankoodii ka qabaan. qaarkood way calaacalaan marka ay maqlaan wadankiibaa dagaal ka dhaceen iyo wadankiibaa madaxdii isku haysataa, iyagoo mar walba aad ugu farxi lahaa wadankiini waa nabad, dib baad ugu soo noqonaysiin guryihiina. xaalka sidan ayuu u egyahay. odaygan waa odayaasha deegaanka ay Soomaalidu degan tahay ee xerada ugu taalo ee dalka Yemen. wuxuu ka hadlayaa Yemen in door ay ka saaran tahay walaalahood muslimiinta ay dhibaataysan inay caawiyaan, inkastoo Yemen aanay wax badan u awoodi karin Soomaalida. marka waxaanu isku daynaa wixii shaqayn kara inay nala shaqeeyaan. haddaba xaalku sidan ayuu Soomaalida u egyahay. dhaqaale la'aanta haysa dhalinyarada Soomaaliyeed waxay isaga lugayaan meelo aad u fog oo dalka Yemen ka tirsan si ay noloshooda wax ugu raadsadaan. waxa sidoo kale ay tagaan meelo kale si ay nolol kale u raadiyaan. waxay inta badan tagaan magaalada Cadan oo ilaa 500 kiiloomitir u jirta halka ay dadkaasi joogaan. noloshu si kastaba ha ahaatee sida wiilkan oo kale waxa uu ka sheekeynayaa in xaaladdu ay aad ugu adag tahay. waad garan kartaa dhibaatada inta leeg qofka ay ku dhacday iyo sida uu uga walwalayo xaalka halka uu ku dambeyn doono mustaqbalkiisa. haddii dhalinyaradii ay sidan tahay, dumarkiina ay sidaa yihiin, caruurtiina ay nolosha ku nooshahay, yaa ka shaqeynaya badbaadada dadkan Soomaaliyeed. Soomaalida qaarkood waxa ay degan yihiin meelo ka wanaagsan halkan oo kale, waayo in dadku dhan haddii ay wada yihiin qaxooti, qaar baa Yurub ku nool, qaarna meelo kale oo ka wanaagsan noloshan ay ku nool yihiin qaxootigan Soomaalida ee dalka Yemen.
qaxootinimada iyo dhibaatada waxa uu qofku aad u dareemayaa marka uu galo noloshan oo kale isagoo halkan ku yimid dhibkii aad ogeydeen doon soo raacay qaarkood dhinteen inta kalena ay noloshan ku nool yihiin odayaal dhalinyaro iyo haween iyo caruur intaba noloshan ayay ku nool yihiin mas-uulkan waa yamani wuxuu ka hadlayaa in dowladda yaman ay ka mid tahay dowladaha saxiixa heshiiskii qaxootiga Geneva wuxuuna noo sheegayaa inay tahay dowladda kaliya ee ka tirsan bariga dhexe ee iyadu markaa heshiiskii qaxootiga Geneva saxiixday sidaa daraadeed wuxuu leeyahay annagu mas'uuliyad baa naga saaran inaynu dadka Soomaalida ah heshiiskii aanu saxiixnay iyo islaamnimadaba ku soo dhaweyno dhinaca waqooyi ee magaalada Cadan ayaa iyana waxaa ku taala xaafadan Soomaalidu ay degan yihiin marka aad dhex gashid waxaad kugu soo dhacaya nolosha magaalooyinka Boosaaso Muqdisho iyo sidoo kale odayaashii baa fadhiya raggii iyo dadkii kale ee Soomaalida ahaa ayaa Soomaaliya oo kale halka u jooga nolosha ayaa sidan ka ah meeshan ay degan yihiin Soomaalida ayaa waxaa isku daya caawintooda hay'ado kala duwan dhinaca caafimaadka waxaa ka caawisa hay'ad la yiraahdo Islaax oo dalka Yemen laga leeyahay wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta dalka Yemenna caruurta Soomaaliyeed ayay u samaysaa meelo u eg iskuulaad si ay markaa u badbaadiso aqoontooda maadaama caruurta iyagoo dhibaataysan haddana ay aqoon darri iyo jahli ku biireen caruurtu waa mustaqbalka barito haddii sidaa lagu daayo wadanku wuxuu noqonayaa wadan mustaqbalkiisu uu mugdi sii galayo marka aad dhex socotid xaafadahan ay qaxootiga Soomaalida Yemen degan yihiin oo ku taala waqooyiga dalkaasi gaar ahaan waqooyiga magaalada Cadan ayaa waxaa dareemaysaa dhibka haysta dadkan Soomaaliyeed qaarkood mararka qaar waxay kaaga sheekaynayaan saraakiisha dalka Yemen inay dhibaato u geysato gabdhaha ayaa ugu daran inkastoo aanay ku sheegaynin dhibka ku dhacaya daawadayaal inta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee aanu ku soo bandhignay xaaladda nololeed ee dhabta ah ee haysata Soomaalida ku dhaqan dalka Yemen ee qaxootiga ah waxaa sidoo kale barnaamijka aanu idinkugu soo gudbinay nolosha qaxootiga ku dhaqan magaalada Boosaaso ee badankiis ka yimid koonfurta Soomaaliya barnaamijkan waxaa ka soo shaqeeyay isku soo dubariday Abuukar Mahdi anigoo Cabdiqaadir Nadaara ahna waan idin la socodsiinayay inta aan barnaamijka la mid ku kulmayno waxaanu idinkaga tagaynaa hees ka mid ah heesaha ay qaadaan hobolada Waaberi oo aanu ku soo bandhigi doono dhibka haysta dadka Soomaaliyeed heestaas oo ah darajo iyo xil yaa mudan iyadoo xilligan Soomaalidu ay dhibaataysan tahay mas'uuliyiintiina ay isku haystaan talada dalka su'aasha meesha taagani waxay tahay yaa la maamuli doonaa mustaqbalka haddii shacabku uu dhinto
وتعر قبيلك يا ديدي أورانكرا تتكيا هرمان كرا عقل ديقا أورانكرا كسبان كرا رقيو سمر وحما كدائرا وتعر قبيلك يا ديدي أورانكرا تتكيا هرمان كرا عقل ديقا أورانكرا كسبان كرا رقيو سمر وحما كدائرا Buddhist